mahadnaqa mas'uuliyadda kala gedisan ee heer qaran iyo heer gobol oo aanan magacyadooda halkan ku soo koobi karayn saraakiisha ciidanka ee habeenay maalinba u taagan badbaadada dalkooda iyo dadkooda meediyaha iyo baanda muusikada booliiska shacabweynaha reer banaadir iyo ciidamada amniga ee gaaf wareegaya hareerihiina dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaam si kooban ayaan u hormarsaday shalay qoraadhicii wixii aan dhihi lahaa wax badan oo ka mid ahna waxaa yidhi mas-uuliyiintii iga horraysay mudanayaal iyo marwooyin iila mahad celiya madaxweynaha jamhuuriyadda oo isagu golaha shacabka iyo golaha sanadka u soo gudbiyey codsigiisa ku aadan matalaadda aqalka sare ee gobolka banaadir sidoo kale waxaan rabaa inaad iila mahad celisaan golaha shacabka oo ku dhiiraday ansixinta matalaadda aqalka sare ee gobolka banaadir waxaan rabaa sidoo kale mar kale inaad iila mahad celisaan madaxweynaha oo ansixintii golaha shacabka kadib mar kale qalinka ku duugay matalaadda aqalka sare ee 13 sano walaalayaal walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin muqdisho waa maskaxdii ummadda Soomaaliyeed waa gogashii ummadda Soomaaliyeed inay qanacdo waxay macnaheedu tahay Soomaaliya oo dhan inay qanacday sidaa darteed maantay waxaan aaminsanahay dhammaanteen haddii aan nahay reer banaadir inaan qanacsanahay bulshada banaadir waa bulsho safar badan waa bulsho imtixaanaad iyo culaysyo kala duwan soo martay bislaatay kala garan karta cadowgeeda iyo saaxiibkeeda beri baa la soo maray kan cadowga uu u soo ekaysiinayay saaxiibka kan saaxiibkana mar walba uu ka soo marayay kan cadowga ah laakiin waxaan soo gaarnay marxalad Allah ayaa mahad leh aan ku kala garan karno saaxiibka dhow iyo cadowga weli ku rayoonaya inuu dib u celiyo dadka gobolka banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa halkaan inaan idinkaga xaqiijiyo inay jiraan baranjiyo u adeega cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo cadowga caasimadda oo halkaan baranjiyo jooga halkaan gobolka banaadir dhexdiina ah laakiin kuwa af ah kuwa muuqaal ah inay iyagu fiican yihiin sheegaya laakiin aan Soomaaliya lahayn meelo kale laga leeyahay kuwaas ayaa xuquuqdiina diidi doona amaba bilaabay inay diidaan bulshada gobolka banaadir waa bulsho garan karta markaa
waxa ay ka mudan yihiin kuwaasi haddii ay ka mudan yihiin soo dhoweyn iyo haddii ay ka mudan yihiin sagootinba waa adinkay idin taallaa ciidamada Soomaaliya Soomaaliya ayagoo mahadsan ayagoo ka kala yimid dhammaan gobollada Soomaaliya waxay joogaan xuduudada dalka oo ay u joogaan inay difaacaan ciidda ummadda Soomaaliyeed kuwa loo ekaysiiyey Soomaali ayaa weerar ku soo qaaday jawaab ayayna siiyeen jawaabtaas iyada ah waxaan rajaynayaa inay darsi iyo waana qaadasho u noqon doonto cid kasta oo shisheeyuhu adeegsado oo u adeegsado dalka Soomaaliya waxaan rabaa in halkaan idinkaga xaqiijiyo marka ay waayaan cid annaga naga mid ah ee adeegsadaan ayaga ayaa isku dayi doona inay xadgudubyo ku sameeyaan ummadda Soomaaliyeed taasoo aan rajaynayo muraadkii ay ka lahaayeen mid ka duwan inay heli doonaan waxaa laga shaqeeyey ummadda Soomaaliyeed in la kala qaybiyo la isu adeegsado dhaqaale lagu bixiyo hub lagu bixiyo laakiin maantay way qaan gaareen waana garanayaan cidda waxaas ka shaqaynaysa talaab kasta oo cadowgeena uu isku dayo waxay kordhin doontaa midnimada ummadda Soomaaliyeed meel ayaana looga soo wada jeesan doonaa maadaama qorraxda taagan yahay waxaan rabaa inaan hadalkayga koobo aad iyo aad ayaan ugu wada mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda haddii aan ahay reer Banaadir waxaa kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo golaha shacabka oo si degdega uga jawaabay codsigii madaxweynuhu uu jeediyey waxaan rabaa oo kale inaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha xildhibaanada qaranka iyo mas'uuliyiinta kale ee heer qaran iyo heer gobol halkan jooga inaan halkaa uga magaceliyo iyaan ayagana doonayaa bulshada reer Banaadir ee mar walba sidaan isugu soo baxa si ay u muujiyaan shucuurtooda ayaan u mahad celinayaa ciidamada booliska baandadooda muusikada fanaaniinta qaranka iyo kuwa gobolka Banaadir meediyaha xaqiiqda ka turjuma ee mar walba garabkeena taagan dhammaan qayb kasta oo ka mid ah inta aan sheegay iyo kuwa aanan sheeginba waan uga mahad celinayaa doorka muuqda oo ay ka qaateen horumarinta dalkeenna gaar ahaan magaalada caasimadda waxaan rabaa inaan halkaa hadalkayga ku soo gunaanado waad mahadsantihiin mar kale wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu